ثاني إذن وجملة كلا مراجعة وضبط صوتي هرا وحين كومتها أتزد وجملة إنجليزية طبعا حلوقتها تابك مبيتورد لكن إنه هدف كان كلنا حوين واك تابك قعنتو إنكو برناوية وحالنا الدكويك دكويك 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 براون فوكس دكويك براون فوكس جامبس دكويك براون فوكس جامبس over the lazy dog معناه هذا لقى مرحبا أخرس هذا لقى مرحبا لكن حلقة قرال كذا بس جملة waxay ka tahay A to Z ABC oo dhameystiran hal xaraf oo ka maqan ma jirto marka macnaheedu waxa weeyaan inaad si u qorantaa u soo qorto waliba aad ku soo koobtay hal sadar sida aan ugu soo koobo hal sadar aad u maasanta kale waxa loo yaqaan qoraal macnaheedu waxa weeyaan jumlo guubaaba ah mar walba oo qoraalkaaga badan yahay waa mar walba oo ay fartaada qurxsan tahay xalina marka jumlada si fiican iskaga fiiri qoraalka badan fartaada ayuu qurxiyaa daba ugu macallin inta laga qoraal badan yahay waa inta laga faqulxsan yahay bas haddii adiga aad noqoto qofka ugu qoraalka badan waxaad noqonaysaa qofka ugu farta quruxsan waa hubaaltaas qoraalka badan fartaada ayuu qurxiyaa idin jumlo kale oo guubaaba aan ugu taagay in dad qof walba uu ogaado isagu hadii laga qoraal badan yahay in laga farquuxsan yahay ma santahay idin waa jumlo kale waxaan ka kooban tahay 15 ayaa ku jirta jumlada aan soo socoto xarfaha Soomaaliga inta lagu isticmaalka badiyaa shaqalada wax weeyaan xarafka ama shaqalka loo yaqaan maadaama uu sidaas yahay ayaan soo qaadanaa jumladan si fiican saga eeg haleenahay idina gaagalayaashu dad badan way yaqaan isleeyahay gaagalayaashu manala garaadba waxaan kuna ka faa'iideynaa xarfaha waxa ku jira afka Soomaaliga shidma ama laba laabmo oo haddii aan laba laabin macnihii ereyga uu baaba'ayo manala garaadba ujeedada aan soo qaato waxa weeyaan waxa ku jirta ereydan jumladan 15 oo madax banaan maadaama ay tahay shaqalada inta loogu isticmaalayo shaqalka iyaduna waa inay sidii tahay aad u keentaa hal sar ku soo koobtaa insha Allah.